Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashirkeenan oo aan ku arki doono cutubka shanaad. Cutubkan wuxuu ka hadlayaa ama ku saabsan yahay waxaan loo yaqaano informal fallacies. Khaladaadka doodaha ku jira qaybta informalka fallacy waan arki doonaa wuxuu yahay khaladaadka ama cilladaha doodaha ku jira ayaa la yidhahdaa fallacy. Haddaba ciwaankan koowaad wuxuu ka hadlayaa fallacy in general. Guud ahaan fallacygu muxuu yahay? Fallacyga si guud ayuu hadlay. Fallacyga hadda waxaa la yidhi waxaa loo qeexaa a deficiency or logical problem that occurs in an argument for various reasons. Waxaa la yidhi waa cillad ama dhibaato dhanka dhanka maangalka ah oo ku dhacda baa la yidhi ama ku timaata doodaha sababo kala duwan u dhacda oo aan ahayn keliya muxuu ahaay premise of false note. Waxaa la yidhi waxay noqon kartaa qaabab kala duwan iyadoo ku xidhan the particular defect of an argument. Cilladda gaarka ee dooda ku xidhan doodaas ku jirta iyadoo ku xidhan ayuu qaabab kala duwan noqon karaa fallacygu. Haddaba waxaa jira baa la yidhi 4 general criteria, 4 shardi oo guud oo lagu qiimeeyo doodani ma good argument mise waa bad argument. Marka waxay kala yihiin taas waa relevance oo ah premiseska iyo conclusionku ma isla xiriiraan, wax isla xiriira ma yahay relevance. Sidoo kale acceptability oo ama doodan ma ay tahay mid la aqbali karo ruuxa caqli leh salaan ruux على rational human being روح بنادم أو عقلاني مو أقبل واحد أقبلي كرميته. sidoo kale sufficiency waxay ka tahay cadayntani culays iyo tir ahaanba ma ku filan tahay in conclusion kani la aqbalo. iyo sidoo kale rebuttability oo ah doodan cidii soo jeedisay ma tahay dood ay difaaci karto markay dadka ka soo horjeedaya ama aragtiyo ka soo horjeeda la keeno. afartaas shardi ayaa lagu qiimeeyaa doodu inay tahay muxuu ahaay good argument. Marka fallacies kan arki doono qaar salaam kan koobaad ee fallacy of relevancy the principle of relevance xeerkaas ayuu ku xadgudbaya khaladku marka xagaas ka imanaya. Haddaba fallacyga waxaa loo geli karaa ama qaabo kala duwan badanaa laakiin waxaa ku yimaadaan baa la yidhi either a mistake in reasoning or the creation of some illusion that makes a bad argument appear good or bad. waxaa la yidhi wuxuu ku yimaadaa in khalad dhanka sababeynta ah ama sidoo kale abuuridda ismoodsiis kaasoo ka dhiga baa la ismoodsiis kaasoo ka dhiga dood bad ahayd mid good argument. wasaalaan dood aan shuruudahan buuxinin ayuu ismoodsiiskaasi ka dhigayaa mid dood muxuu ahaay dhammaystiran oo good argument. labadaa qaab ayuu dhici kartaa muxuu ayaa loo geli karaa muxuu ahaay qaab yaa ugu caansan qaabo kala duwan oo kale khaladaadkan u dhacaana way jiraan. fallacyga haddaba guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood formal iyo informal. formal fallacyga hadda waxaa la yidhahdaa waa khalad ama waa cillad qaab dhismeedka dooda ku jira dooda qaab dhismeedkeeda ayaa khaladkan sababay oo sabab ah. fallacyga noocaas la yidhahdaa formal. informalkuna waxaa la yidhahdaa waa khalad ku yimaada qaybaha ay dooda ka kooban tahay salaan macnaha erayada ayaa laga yaabaa khaladka dooda ku jira inay sababeen macnaha erayada. labada qaybood baa haddaba guud ahaan loo qaybiyaa maxay formal fallacyska. informalka ayaa haddaba si gaar ah cutubkan uga hadlaya. formal fallacyska hadda waxaa laga helaa baa la deductive arguments that have identified forms kuwaasoo la qaabab la sooci karo maadaama iyagu qaababkooda qaab dhismeedkooda la kala sooci karo. inta badan formal fallacygu waxay ku dhacaan doodaha deductive-ka oo ah kuwa cutubkii labaad kusoo aragteen sida categorical syllogism, deductive syllogism, hypothetical kuwaas. tusaalahan aan fiirina baa leeyahay all tigers are animals all mammals are animals therefore all tigers are mammals. waxaa la yidhi inta badan marka la qaab dhismeedka dood leedahay marka la rabo in la ogaado inay valid tahay inay kala doodani iyadoo qaab dhismeedkeeda la falaqeynayo waxaa la isticmaalaa assumption waxaa la yidhi ka soo qaad haddii tigers oo dhan ay yihiin xayawaan ay yihiin xayawaanka naasliyada oo dhan sidoo kale xayawaanka ay qayb ka yihiin sidaa daraadeed tigers oo dhani waa mammals haddaan conclusionka ah tigers oo dhani all tigers ama shabeelka oo dhani waa mammals. argumentigan baa la qaab dhismeed ahaan sidaan u yaalaa waa tusaale adoo yidhahda a oo dhani hadday b tahay a oo dhan waa b c oo dhanna waa b sidaa daraadeed a oo dhani waa c. marka doodan markaan qaab dhismeedkeeda eegno waa invalid sababtoo haddii labadan tusaale la isdaba marin lahaa oo loo all b r c labada haddii la isdaba marin lahaa doodaas waxay noqon lahayd valid laakiin iyaga qaabka u taalo haddaad a oo dhan inay b tahay ka soo qaado c oo dhan aad ka soo qaado inay b tahay dee a oo dhan inay c tahay muxuu ahaaye premiseskaasi caddayn ku filan uma keenayaan. saa darteed doodan qaab dhismeed ahaan markaad fiiriso inay valid tahay inay kala ogaan kartaa. saa darteed formal fallaciesku doodaha qaab dhismeedkooda la kala garan kara ee deductive-ka ayuu ku dhacaa. informal fallaciesku iyagu waxaa la yidhi waa are those mistakes in reasoning process of an argument
waxaa la yidhi waa khaladaad ku dhaca baa la yidhi hanaanka sababeynta ee doodaha kuwaas oo aan lagu garwaaqsan karin keliya qaab dhismeedka dooda inaan falanqeyno qaab dhismeedka keliya dooda intaad haddaad falanqeyso waxaa laga yaabaa inaad khaladka ku jira soo saarin hadduu khaladkan yahay informal laakiin waxaan ku garan karnaa keliya haddaan falanqeyno qaybaha uu doodu ka kooban tahay tusaalehaan macnaha ereyga qaabka odhahyada ay doodu ka kooban tahay u dhisan yihiin waxyaabaha inoogu falanqeynayno markaas ayay khaladka soo ogaan karnaa tusaalahan soo socda waxaa la yidhi all factories are plants all plants are things that contain chlorophyll therefore all factories are things that contain chlorophyll tusaalehaan waxaa la yidhi all factories are plants waxaa la yidhi factory primaiska koobaad tusaalehaan factories waa factory waa warshad balantin iyaga hadda macnaha kama ku jirta warshad laakiin primaiska labaad ereyga plant waa dhir primaiska koobaad iyo primaiska labaad ereygan laba macno kala duwan baa loo isticmaalay saa darteed khaladka dooda ku jira markaad conclusionka fiiriso waxay ka dhigan tahay factorieska oo dhani waa shay ka kooban baa la yidhi chlorophyll oo cagaariya dee dhirta un baa le laakiin warshaduhu male marka labadan ereygan plant oo labadan primais laba macno kala duwan loo isticmaalay ayaa doodan sababay khaladkeeda waxaa la yidhi haddaynu doodan qaab dhismeedkeeda keliya fiirino oon dhahno sidaan oo kale u taala tusaalehaan a oo dhan waa b b oo dhan waa c therefore all a r c doodan hadda qaab dhismeedkeeda keliya haddaad fiiriso waa valid bay noqon laakiin doodan waa invalid waxa invalid ka dhigay ama khaladka u keenay ma aha qaab dhismeedka ee waa maxay waa content qaybaha ay doodu ka kooban tahay tusaalehaan macnaha ereyada ay ka kooban tahay ayaa khaladkan sababay khaladyada noocaasa ama ciladaha noocaas ee doodaha ku yimaada ayaa loo yaqaanaa maxay informal fallacies informal fallaciska hadda waxaa loo qaybiyaa qaybo kala duwan baa loo qaybiyaa marka waxaan arki doonaa qaybahan fallacies of relevance fallacies of fake induction fallacies of perception fallacies of ambiguity iyo sidoo kale fallacies of grammatical analogy waa shantaa qaybood mid kasta qayb hoosadii leedahay marka guud ahaan waxaan arki doonaa 22 fallacy ama 22 nooc oo khaladaadka doodaha ku jira ayaan arki doonaa qaybtan waxaan ku arkaynaa fallacies of relevance horey waxaan usoo aragnay shuruudaha looga baahan yahay doodu si ay u noqoto good argument waxaa ka mid ahaa relevance oo ah primaiskaaga iyo conclusionkaagu markas inay xidhiidh leeyihiin oo inay isla xidhiidhaan haddaba fallacies of relevanceka ama khaladaadka dooda ku jira ee xidhiidh la-aanta primaiska iyo conclusion ka dhasha baa la yidhi waa kuwa marka laga reebo baa la yidhi missing the point waa kuwa baa la yidhi loo dhaca baa la yidhi primaiskaaga oo aan conclusionkaaga xidhiidh la lahayn laakiin missing the point waxay ka dhigantay 8 qaybood baan arki doonaa 8daa qaybood missing the point marka laga reebo dhammaan inta kale oo dhan primaiska ayaan xidhiidh la lahayn conclusion laakiin missing the point qaybtan la yidhaahdo waxaa la yidhi conclusionka irrelevant oon xidhiidh la lahayn primaiska hadda waxaan arki doonaa 8 qaybood 8daa qaybood appeal to force ilaa iyo waxaan arki doonaa mid baan arki ilaa iyo red herring appeal to force haddaba qaybtan koowaad appeal to force waxaa la yidhahdaa cuskashada xoog macnaheedu waxay ka dhigan tahay doodaada ayaa waxaad isku dayeysaa si conclusionkeeda loo aqbalo inaad hanjabaad ama xoog aad ku ladho si cidda aad usoo jeedinaysa ay u aqbasho iyadoo xooggaa iyo hanjabaadaasina ayna wax xidhiidha la lahayn saxnaanshaha iyo muxuu ahay khaladnimada ay doodaada iska leedahay haddaba the first type of fallacy of relevance waxaa weeyaan appeal to force waxay dhacdaa baa la yidhi marka ruuxa dooda soo jeedinaya markuu ruux usoo jeediya baa la yidhi conclusion uuna u sheego si cad ama si dadban waxaa la yidhi either implicitly or explicitly si cad ama si aan cadayno dadban ugu sheega baa la yidhi in ruuxaas dhibaata soo gaari doonto haddii una conclusion ka aqbalin waxaa la yidhi tusaalahan hoose aan fiirina badan tusaale waxaa la yidhi Mr. Cabot you accuse me of fraud and embezzlement Mr. Cabot waxaad igu soo eedeysay buu leeyahay wax isdabamarin iyo eex you have to drop the charge you filed against me waa inaad joojisaa dacwadda aad iga gudbisay waa inaad xusnaataa buu leeyahay inaan booskaaga horay I will torture both you and your family members wuxuu leeyahay adiga iyo xubnaha qoyskiina waan jir dili haddaad kiiskan joojinin because waad fahantay sooma marka dooda waxaa la socdaa conclusionkiisa ah in la joojiyo kiiskan laga gudbiyey ama dacwaddan laga gudbiyey si loo joojiyo waxa uu ku laray hanjabaadaasina wax xidhiidha lama leh maxaa conclusionka saxnaanshihiisa iyo khaladnimada wax xidhiidha lama leh saa darteed waxaa la odhan doodani waxay gashay fallacy la yidhahdo appeal to force nooca labaad appeal to pity waxaa la yidhi noocani is the attempt to support inta yara qows ku jirta magacaas waxaa weeyaan waa intaa macnaheedu latin wey waxaa la yidhi waa isku dayga baa la yidhi aad isku daysa baa inaad taageerto conclusionkaaga inaad ku taageerto merely by evoking pity in one's audience keliya baa la yidhi adoo dareen muxuu ahaa naxariis ka keensanaya baa la dadka ku dhageysanaya waa pity waxaa la yidhi naxariis waa inta statement ama inaad ruuxa u naxitaan
when the statements that evoke the pity are logically irrelevant ama unrelated to the conclusion iyadoo orahyadan aad ku hadlaysa ee aad rabto inaad dadkan muxuu ahaay naxariis ama aad kaga keento aan xiriir la lahayn muxuu ahaay conclusion-kaaga marka qaabkan oo kale u leeyahay baa la yidhaha appeal to pity saalaan premises-kaagu noocan ay u dhacayaan waxaad leedahay ruuxa noocaasa ama shayga saasa ama xaaladda noocaasa waa inaan ka naxnaa waa inaan u naxnaa saa darteed conclusion-kaaga waxaad ku daraysaa waxaad leedahay waxa waa inaan u qabana inagoo ruuxa u danaynayna inkastoo baa la yidhi shaygan la qabanaya aan xiriir la lahayn muxuu ahaay sababaha la soo sheegay tusaalahan soo socda waxaa leedahay the headship position in the department of accounting should be given to Mr. Umar Abdullah waxaad leedahay booska madaxa waaxda xisaabaadka waa in madax looga dhigo muxuu ahaay Umar Abdullah sababtoo ah wuxuu leeyahay 6 ciyaal oo gaajaysan oo wuxuu siiyo oo u baahan yahay sidoo kale islaantiisu baa waxay si aad ugu baahan tahay maxay qaliin si ay araggeeda indhaha u badbaadiso marka doodan premises-kan ama orahyadan aad dadka dareenkooda naxariiseed kusoo jiidanayso conclusion-kaagana ah in loo dhiibo muxuu ahaay departmentiga ama waaxda xisaabaadka loo dhiibo wax xiriir lama leh marka haddaad doodaada aad ku meel mariso adoo dadka muxuu ahaay naxariis iyo nixitaan ruux salaano ka keensanaya dooda noocaasa la yidhahdaa waxaa ku jira maxay fallacy la yidhahdaa appeal to saddexaad waxaa la yidhahdaa appeal to the people waxaa la yidhi qof kasta wuxuu jecel yahay wuxuu rabaa qof kasta in la jeclaado uu noqdo ruux bulshada dhexdeeda laga jecel yahay la tixgeliyo oo iyuu jecel yahay ruux kasta marka dareenkaa baa la ruux inuu noqdo part of community inuu bulsho qayb ka noqdo iyo sidoo kale inuu wax uu leeyahay jirto oo dad uu ka tirsan yahay waxaa la yidhaha waa mid ka mid ah baahiyaha ugu muxuu ahaay ugu muhiimsan ee biniaadamka haddaba appeal to people waa la strikes these desires and needs to get acceptance for conclusion appeal to people haddaba fallacy-ga noocani baa la yidhi baahiyahan iyo doonitaanadan ayuu taabtaa si uu aqbalitaan ugu helo muxuu ahaay conclusion-kiisa ama si kale haddaan u dhigna baa la appeal to people is an attempt to persuade a person waxaa la yidhi waa isku dayga la isku dayay baa ruuxa in lagu qanciyo ama koox in la isku dayo in lagu qanciyo by appealing to these desires and needs iyadoo la cuskanayo oo doodaa loo cuskanayo doonitaanadan iyo sidoo kale baahiyaha ruuxa tusaalahaan dood baa la soo jeedinaya doodaas conclusion-keeda si aad u aqbasho ruux baahida uu qabo ruuxu inuu ka tirsanaado dad ayaa loo adeegsanaya marka wuxuu dhacaa laba qaab waxaa jira laba nooc u dhaco oo kala ah direct iyo indirect si toos iyo mid aan toos ahayn dadban direct approach-ka hadda wuxuu dhacaa baa la weenan arguur marka baa la ruux doodayay oo la hadlayay baa la kooxdada uu isku dayay baa la inuu kiciyo dareenka iyo xamaasadda dadka isu yimid si uu ay conclusion-kiisa u aqbalaan indirect waxa weeyaan marka ruuxan doodayay baa la yidhi oo doodiisa una si guud ugu jahaynin muxuu ahaay dadkan isu yimid badan laakiin si gaara wuxuu u targeysanayaa shakhsi ama ashkhaas ayuu gaar u targeysanayaa isagoo waliba xiriirka dhinacyada xiriirka dadkan isu yimid kala leeyihiin isagoo muxuu ahaay xagga ka eegaya dhankaas muxuu ahaay diiradda saaraya indirect approach-ka hadda is very common in advertising industries waa la xayisiisada waxyaabahaas ku badan yahay saddex qaab uu isaguna noqdaa oo kala yidhahdo bandwagon vanity iyo snobbery bandwagon waxaa la yidhahdaa waa nooc ka mid a muxuu ahaay appeal to force-ga waxaa la yidhi waa nooc ruux qayb bulsho inuu ka mid ahaanshaha bulsho baahida uu qabo xagga iyadoo ruuxa su-aalaan oo kale baahidaas la taabanayo si loogu qanciyo muxuu ahaay conclusion qaybtaasa la yidhahdaa bandwagon tusaalaan ruux baa laleeyahay tusaalaha waxaa la leeyahay tusaalaan bulshada Ethiopia oo dhan waxay aqbalsantaa ama waxay sax u aragtaa gudniinka saa darteed adna waa inaad aqbashaa maadaama bulshada Ethiopia ka mid tahay ruuxaas waxaa laga yaabaa conclusion-ka inuu aqbalo si aan loogu arkin inuu bulshada ka mid ahayn ilaa bulshada Ethiopia oo dhan baa aqbashay baa la yidhi soo ma adna markaa waa inaad aqbasho vanity waxaa la yidhahdaa product ama wax la soo saaray ayaa inta badan wax soo saarka ayaa lala xiriiriyaa ruux aad loo yaqaano oo caana tusaalaan waxaa laga yaabaa in la yidhahdo kabtaas ama koofiyadda ama waxaas ruuxa caanka ah xidhay waxaana loogaga dhigayaa sidii haddaad adna xidhato ama aad kabta xidhato ama koofiyaddaas inaadna sidiisoo kale ruux caano oo aad loo jeceliyo inaad noqon snobberina waxaa la yidhahdaa snob waxaa la yidhahdaa ruuxa isla weyne jecel muxuu ahaay dadka inuu isu arka markasta inuu dadka fiican yahay marka ruuxaas dareenkiisa isla weyne iyo dhanka laga imanaya yaa ruuxana conclusion khaldan laga yaaba in lagu qanciyo tusaalahaan waxaa laga yaaba in la yidhahdo biyahan cusub ee hadda lasoo saaray waxaa loogu talagalay cid kasta in cabto looguma talagelin adiguna dadka waad ka duwan tahay saa darteed biyahan adaa lagugu talagalay waa snobbery baa la yidhahdaa marka saddexdaa qaab buu noqon karaa muxuu ahaay appeal to the people nooca afraad waxaa la yidhahdaa argument against the person waxaa la yidhi argument against the person is another type of relevance fallacy nooc kale ka mid weeyaan waxaa la yidhi inta badan wuxuu ku lug yeeshaa baa two arguers laba ruux isla doodaysa
one of them advances either directly or implicitly mid ka mid ah baa la ayaa dooda soo jeediya si toosa ama si dadban kadibna ka kale ayaa ugu jawaabay baa la yidhi isaguna isagoo attentionkiisa u jihaynaya muxuu ahaay dood aan u jihaynay laakiin ruux u jihaynaya su-aalaan ruux baa dood soo jeediyey doodii toos uma abaaraysid ruux ayaad muxuu ahaay aad muxuu ahaay doodaadi ku jihaynaysaa marka saddex qaab buu noqon waxaa la yidhahdaa ad hominem abusive fallacy noocan waxaa la yidhahdaa ruux markuu dooda soo jeediyo haddaad meesha doodaysa aad dhaleecayn lahayd aad si toos isaga af ahaan u caydo ayaa la yidhahdaa muxuu ahaay noocan su-aalaan ruux baa wuxuu u doodaya wuxuu leeyahay waa in lasoo saaro sharci ilaalinaya muxuu ahaay xuquuqda xayawaanka doodan ah in sharci xuquuqda xayawaanka lasoo ilaalinaya ama xayawaanka xuquuqda hala ilaaliya inaad doodaas inaad jawaabtaadu doodaas ay muxuu ahaay ku jihaysanaatay laakiin waxaa tiri adigoo muxuu ahaay su-aalaan waxaa tiri adoo noocaasi ruuxii baad isagii baad cayday doodii markaa maada ka jawaabin ruuxii baad muxuu ahaay toos u cayday marka tan noocaas waxaa la yidhahdaa markaad doodaadu aad si toos ah ruuxa u caydo waxaa la yidhahdaa maxay ad hominem abusive fallacy waxaana ka mid tahay argument against the person qayb ka mid ah nooca labaadna waxaa la yidhahdaa ad hominem circumstantial fallacy waxay ka dhigan tahay ruux baa dood soo jeedinaya adna doodaadii ama jawaabtaadii meesha dooda ruuxan kale aad ku jihayn lahayd ayaa waxaad isku dayeysaa ruuxan inaad si toos u caydo isuma dayeysaa sida tii hore oo kale ee ad hominem abusive fallacyga waxaad laakiin isku dayeysaa waxay xaalado ku hareeraysan oo ruuxa saameyn ku leh inaad muxuu ahay su-aalahaan inaad aad soo xigato si aad u muujiso inuu ruuxani qaabka u doodaya ay uu tahay qaab marka hore usii janjaaray tusaalahaan arday baa tusaalahaan soo jeedinaya le macalin kuiskii aad naga qaaday inaga daa marka waxaa leeyahay hebel wuxuu saa ugu doodaya sababto ahaa inuuna si fiican uga shaqaynin buu ogyahay nooca labaad ee youtube waxaa la yidhahdaa iyadana ruux baa dood soo jeedinaya doodii markuu soo jeedinaya ruuxaas waxaa muujinaysaa waxan inuu wuxuu leeyahay wuxuu sameeyay inay iswaafaqsanayn waxaad leedahay tusaalahaan dhakhtar waaninaya bukaankiisa wuxuu dhakhtarkii baa ku yidhi sigaar cabitaanka iska daa dhakhtarkii bukaankii baa wuxuu ku jawaabayaa adiga laftaada u cabtahay seedii ugu waanin kartaa inaan joojiyo muxuu ahaay marka markii dood ruuxu soo jeediyo adiguna saas waxaas muxuu ahaay lama rabo waxaa la rabaa inaad dooda toos u abaarto marka fallacyga noocaas waxaa la yidhahdaa youtube fallacy nooca shanaad waxaa la yidhahdaa accident the fallacy of accident waxaa la is committed waxaa la galaa when a general rule is applied to a specific case marka waa la yidhi rule ama xeer guud xaalad gaara loo adeegsado it was not intended to oon loola jeedin baa la yidhi inay marka aanu ku saabsanayn tusaale gaar ahaana baa la yidhi the general rule is cited xeerkan guud baa lasoo xigaa baa la yidhi si toos ama si dadban buu ruux usoo xiganaya premiskiisa kadibna haddana si khaldan ayuu wuxuu ugu adeegsanayaa baa la yidhi wax gaara ama case gaara oo conclusionkiisa ku sheegay tusaale ahaan waxaa la yidhi freedom of speech is a constitutional guaranteed right xorriyatul qowlku waa xaq dastuuriyan la damaanad qaaday therefore said daraadeed John Q. Radical should not be arrested for his speech that incited the riot last week waxaa leedahay xorriyatul qowlku waa xaq dastuuriyan la damaanad qaaday sidaa darteed John Q. Radical ninkan la yidhahdo waa inaan loo xidhin hadalkiisii uu yidhi toddobaadkii hore ee kiciye baa la yidhi rashbadaha marka hadalkiisan uu kiciyey waa specific case freedom of speech waa general rule marka general rule baad u adeegsanaysaa wax gaar aad u adeegsanaysaa marka xorriyatul qowlku xad bay leedahay marka wax kasta kuma hadli kartid marka general rule oo ah xorriyatul qowlku inuu yahay xaq dastuuri ah ayaa waxaad u adeegsanaysaa xaalad gaara oo ah ninkan hadalkii uu yidhi ee kiciyey muxuu ahaa rashbadaha nooca lixaad strawmanka waxaa la yidhahdaa wuxuu dhacaa marka uu ruux doodaya ayuu isku daya baa la yidhi ruuxa kasoo horjeeda doodiisa inuu distortion ku sameeyo ama inuu suuro xumeeyo isagoo ujeedaduna tahay baa la yidhi inuu si fudud u weeraro kadibna doodii uu qaab xumeeyey buu ruux iyuu meesha ka saarayaa kadibna wuxuu kusoo gabagabeynaya inuu doodii dhab tahayna uu ahayd uu meesha ka saaray marka dooda noocna tusaalahaan waxaa la tusaalahan safeeri balay ayaa wuxuu ku dooday baa la yidhi wuxuu aaminsan yahay in ethnic federalismka ama federalismka ama federalismka ku salaysan qoomiyaddu inuu waddanka burburiyey saa darteed waa in lagu bedelaa buu leeyahay federalism ku salaysan juqraafiya dhul ku salaysan saa darteed marka nin ka soo horjeeda baa wuxuu leeyahay waa inaynaan aqbalin ninkan soo jeedisi waxaanu soo jeedinaya waa inaynaan aqbalin sababta wuxuu rabaa waddanka inuu dib ugu celiyo muxuu ahaay dowladihii hore qaabkay waddanka u maamulay in dib ugu celiyo wuxuu leeyahay geographical federalismku wuxuu ahaa noocii dowladeed ama noocii qaab dhismeed dowladeed ee xilligii dhergiga iyo dowladihii boqortooyinku isticmaali jireen saa darteed inaan waqtigii hore dib ugu noqon ma rabno saa darteed waa inaan diidnaa master Bly's proposal soo jeedintan master Bly uu soo jeedin waa inaan diidnaa marka waxay leeyihiin doodan waa laba ruux baa doodaysa Bly iyo his critic ruuxii muxuu ahaay ka soo horjeeday marka Bly wuxuu ku doodayaa geographical federalism inuu in muxuu ahaay waddanka laga hirgeliyo oo ethnic federalismka laga boodo kan criticina marka uu ka soo horjeedaa saa darteed
ruuxan doodii geographical federalism meesha toos u abaari lahaa buu leeyahay wuxuu doodii buu qaabkii uu ka bedelay ama suur xumeyn buu u sameeyey oo wuxuu ku tilmaamay inay tahay wax wadan waqtigeedii la soo dhaafay oo dib loogu noqday waxaas ku tilmaamay sidaa darteed dooda muxuu ahaaye ruuxa kaa soo horjeeda haddaad isku dayda inaad qaabkii ka bedesho si aad inaad weerar tahay kugu dhib yarato faalasiga noocaas waxaa la yidhahdaa maxay strawman nooca toddobaad waxaa la yidhahdaa missing the point waxaa la yidhi all the fallacies we have discussed this have been instances of cases where the premises of an argument are irrelevant to the conclusion waxaa la yidhi fallacieskii aan soo aragnay o dhan dhammaantood waxay ahaayeen premiskooda ayaan xidhiir la lahayn conclusionka laakiin si aan horeyba usoo aragnay missing the point isagu muxuu ahaa special form of irrelevance waa nooc gaar isagu it occurs waxay dhacdaa bali when the premises of an argument support one particular conclusion marka premisesku ay taageeraan baa li conclusion gaar laakiin conclusionkii ka duwan badanaana baa li si aan caddayn ula xidhiidha meeshii la keeno oo conclusionka ayaan premiseskan xidhiir la lahayn tusaale ahaan waxaa la yidhi the world is in the process of globalizing more than ever waxaa la yidhi dunidu way si caalamiyeyn waxaa la yidhahdaa globalizationka dunidu baa la yidhi way isu sii dhawaanaysaa si ka badan sidii hore haddaba dhaqaalaha adduunka baa la yidhi dhaqaalaha adduunku wuxuu sii noqonayaa mid aad iyo aad isugu xiran shirkadaha waaweyn iyo hay-adaha dowladaha kale iska leeyihiin iyaga waxay awoodi ka qaadanayaan leeyahay hay-adihii localka ahaa ee maxalliga iyo kuwii waddanka sidoo kale nolosha dadka baa la yidhi waxaa si aan kala sooc lahayn u saameynaya ficilada iyo go-aanada laga sameeya dhinaca kale ee meeraha maadaama dunidu isku xirantay taasina waxay faa'iido u leedahay only the rich nations wadamada qaniga at the expense of the poor iyo dadkii kale wadamada fuqarada ahaa ay ku khasaarayaan haddaba what should be done maxay tahay in la sameeyo maxayna la gudboon marka wuxuu leeyahay the answer is obvious jawaabtu way caddahay poor nations should detach themselves from the process wadamada faqrigii waa inay hanaankan iskaga hadhaan globalizationka ama caalamiyiinta waa inay iskaga hadhaan oo isku furaanshahan dhaqaalaha iyo waxaan inay joojiyaan weyaan marka premiseskaas conclusionkoodii bayna helin sababtoo ah globalizationku wadamada waaweyn muxuu ahaaye faa'iidada ugu badan ha ku qaban laakiin wadamadan muxuu ahaaye wax soo saarka badan lahayn ee fuqarada iyaga laftooda faa'iiday ku qabaan marka conclusionkii premiseskaas ay qaadan lahayn wuxuu ahaan lahaa in la isu dheeli tiro globalizationka hanaanka looga faa'iidaysanayo isku xidhnaantan dunida in la isu dheeli tirayd laakiin conclusionka saxdii ma aha in processkan dhan ay ka hadhaan khasaarihii ay ku qabeen dee uu ka hadhay laakiin faa'iido badan oo ay ku qabeenna way waayayaan marka noocan waxaa la yidhahdaa missing the point conclusionka ayaan irrelevant ama conclusionka ayaan xidhiir la lahayn premiseska kuwii hore oo kale aan soo aragnay laakiin premiseska ayaan conclusionka xidhiir la lahayn toddobada kaleba kan laakiin 8 fallacy of relevancyga 7 premiseska ayaan xidhiir la lahayn muxuu ahay conclusionka halka soo harayna conclusionka ayaan xidhiir la lahayn muxuu ahay premiseska noocan sideedaad oo kii u dambeeyay muxuu ahay fallacy of relevance red herring leader fallacygan waxaa la yidhi is closely associated with missing the point ayuu si dhow la xidhay it's committed waxaa la galaa waxay dhacaa baa la yidhi marka dooduhu baa la yidhi uu attentionka akhristaha ama dhegeystaha uu leexiyo isagoo bedelaya the subject wixii laga hadlay isagoo bedelaya to a different mid kale u bedelaya but sometimes subtly related laakiin mararka qaarkood mid aad ula xidhiidha oo u dhow aan laga garanayn ku bedela he or she then finishes by either drawing a conclusion about this different issue or by merely presuming that some conclusion has been established waxaa la yidhi kadibna wuxuu kusoo gabagabeeyaan isagoo muxuu ahaaye samaynaya baa la yidhi conclusion kale ama kaba soo qaadaya in conclusion kale halka ka samaysmay haddaba isagoo saa samaynaya baa doodahani wuxuu ka soo qaadaa inuu doodii ku guulaysto haddaba ruux suu adeegsaday baa red herring oo ah inaad mawduucii bedesho ood attentionkii dhan kale u leexiso waxaa la yidhi dooduhu waa inuu marka hore bedela baa la yidhi subjectiga ama wax ku saabsanaa dood isagoo aan akhristaha iyo dhegeysuhuna dareemin haddaba qaamaad sidaan u samayn karta waxaa weeyaan inaad subjectiga wixii laga hadlaya aad ku bedesho shay si dhow la xidhiidha kii asalka ah tusaalahan fiiri waxaa la yidhi editors of Addis Flower newspaper have accused our company of being one of the city's worst water polluters waxaa la yidhi wargeyska muxuu ahaa Addis Flower ayaa wuxuu ama tafatirayaasha wargeyska Addis Flower ayaa waxay ku eedeeyay shirkadeena u leeyahay inay tahay mid ka mid ah shirkadaha bikhowga biyaha ama wasakhowga biyaha ugu badan sameeya ama biyaha wasakhda ugu badan ku sidaaya laakiin Addis News Flower is responsible for much more pollution than we are wasakhayntan sameeyna mid ka badan buu isagu mas'uul ka yahay uu sameeyaa waxay leeyihiin shirkad waraaqada soo saarta shirkadan maxay ku siisay intaasoo tan oo kimikooyin hadhaa kimika ayay ku sii daayaan muxuu ahay webiga magaalada maalin kasta marka ninkan dooda eedii loo soo jeediyay ahayd inay yihiin dadka ugu badan ee wasakheeya biyaha magaalada mawduucii buu bedelay oo wuxuu leeyahay iyaga laftoodu shirkad waxay leeyihiin warqadda soo saarta saa darteed intaasoo tan ama oo hadhaa kimikaada ayay ku sii daayaan maxay
webiga marka wuxuu isku dayay maxay attentionkii dhageystayaasha ama akhristayaasha inuu leexiyo isagoo mawduucii laga hadlayay bedelay